buundadan waxaa la yiraahdaa buundada Bosfor ama buundada shuhadada waa meel caalamka oo dhan uu ku baraarugay saacadu markay ahayd 10kii habeenimo maalin Jimcaha bishii Juulaay waxaana ay ahayd sanadkii 2016 waxaana dhacay afgambigii lagu doonayay in lagu rido dawladda Turkiga haddaba waxaanu bilaabi doonaa sheeko ku saabsan shirqoolkaasi iyo cidii ka dambeysay waxay ahayd bilowgii arinta waxaa soo gaaray sirdoonka waddankaasi Turkiga arin ku saabsan inuu jiro dhaqdhaqaaq dhinaca ciidamada gudahooda ah gaar ahaan saldhigga la yiraahdo Angelin ee dhinaca cirka abaanduule ku-xigeenkii ayaa waxa uu telefoon ku dhuftay madaxdii sirdoonka taliyaha sirdoonka waxa uu sii galayaa xarunta sirdoonka waddankaasi waxaana laga wada hadlayaa dhaqdhaqaaqyada ay wadaan militariga inta badan kulamadu waxay ahaayeen kuwo diiradda lagu saarayay ujeedka iyo waxa ay yihiin waxa ku soo biiray kulanka abaanduulaha koobaad kan labaad iyo taliyaha ciidanka dhulka waxaana ay go'aan ku gaareen inay qodobo ka soo saaraan dhaqdhaqaaqyada socda waxay mamnuuceen in diyaaraduhu ay ka kacaan saldhigyada cirka ilaa amar dambe waxay soo kale mamnuuceen in dabaabaadka ay iyaguna ka soo baxaan xarumahooda ilaa amar dambe midda kale waxay ahayd in arintani loo qaadanayo si dhab ah awaamirtana la hirgelinayo taliyihii hore ee dhinaca sirdoonka ciidamada waxa uu sheegayaa in amarkaasi uu soo baxay haddana waxa uu leeyahay koox ka tirsan ciidamadu waxa ay mar walba doonayeen in ay markaasi iyagu ka hor yimaadaan xukuumadda sidee amarkaasi u fulin karaan afayeenka madaxweynaha waddanka Turkiga Ibrahim Qolan ayaa waxa uu sheegayaa in dhaqdhaqaaqyada ay la wada socdeen laakiin loo haystay wax ku saabsan in amar diido dhaxda ciidanka ah ay jirtay balse lama ogeyn afgambi weyn inay maleegayaan laakiin su'aasha dad badan isweydiinayeen waxay ahayd hadiiba sirdoonku ay arimaha dhan la socdeen maxaa loo la socodsiin waayay madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha laakiin taliyihii hore ee ciidamada waxa uu sheegayaa dhinaca sirdoonka militariga weeyaan in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aan loo gudbin karin warbixino aan dhamaystirnayn balse ay sirdoonka iyo taliyaashu ku hawlanaayeen xaqiiqda dhabta ah marka la helo in la wadaago si aanay khalkhal u galin hoggaanka waddanka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay hawshooda caadiga iska wataan الجميع يحاولون قراءة ما جرى قبل المحاولة لكن waxa uu leeyahay afayeenka madaxweynaha dhaqdhaqaaq kasta oo socday madaxweynaha inkastoo si dhab ah aan loo soo wargelin haddana waa la socodsiinayay hadba meesha ay wax marayaan laakiin muhiimaddu waxay ahayd in si dhab ah loo ogaado waxa jiray laakiin dareen waa uu jiray inkastoo dareenku uu u badnaa in militariga dhexdooda uu yahay markii ay ogaadeen qoladii doonaysay afgambiga in sirdoonka dhaqdhaqaaqoodu uu ogaaday waxa ay isku dayeen inay san ka laabanin go'aankooda balse ay fuliyaan afayeenku waxa uu leeyahay isku dayga afgambiga waxay ogaadeen in ay mukhaabaraadka ama sirdoonka Turkigu wax badan la socdaan sidaa daraadeed waxay doonayeen aroorta hore inay afgambiga sameeyaan subaxa sabtida ah laakiin 6 saacadood ayay waqtigii qorshuhu ahaa ka soo hormareen si markaa ay uga hortagaan sirdoonku inuu fashiliyo iyaga isla waqtigaasi 3 saac markii ay ahayd habeenimo maalin Jimcaha ayaa waxa uu madaxweynuhu ku sugnaa hotel ku yaala magaalada la yiraahdo Marmaris oo dhinaca xeebta ah wasiirka daaqada ee waddanka Turkiga ayaa la joogay madaxweynaha oo qoyskiisa ka mid ahaa waxa uu leeyahay madaxweynuhu 3 saac waxa uu la fadhigay qoyskiisa
haddana waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo laakiin telefoonadii ugu horreeyay waxba maysan noo caddaynin inkastoo markii la gaaray 3 saac iyo bar habeennimo ama 9 iyo barka habeenkii uu madaxweynuhu galay qolkiisa si uu u bilaabo telefoonno inuu wax badan kula xiriiro aniguna sidaa oo kale baan sameeyay waxa ay soo galeen qoladii afgambiga abaanduulaha ciidamada xafiiskiisa waxayna u sheegeen in ay yihiin qoladii hogaaminaysay afgambiga wadankana uu gacanta ugu jiro ciidamada isagana muhiim uu yahay iyaga inuu ku soo biiro si ay awoodda wadanka ula wareegaan laakiin waxa uu yiri abaanduulaha oo maxay tahay waxa ay wadaan maxay tahay qoryaha aad igu qabateen oo aad doonaysaan haddii aad doonaysaan inaa aniga idishaan idila laakiin aniga waxa ay wadaan iyo dambigan qayb kama noqon karo laakiin waxay isku dayeen inay sii qanciyaan iyagoon wax dila ku sameeynin inuu la shaqeeyo waxay u sheegeen ninka iyaga soo diray ee afgambiga ka mas'uulka ah in markaa telefoon uu kula hadlo si markaa uu u sheego hase ahaatee isagu mar walba waa uu diidanaa in iyaga uu la shaqeeyo Golan ayaa waxa ay leeyihiin waa in uu telefoonka kula hadashaa si isaga uu kuugu qanciyo in aad nala shaqaysid wadankana aanu u qabsano waa 10kii habeennimo waa waqtigii afgambiga uu bilaabanayay buundada la yiraahdo Basfuur ama buundada shuhadada waa meesha ay wax ka bilowdeen laakiin waxa uu leeyahay taliyihii hore sirdoonka militariga Turkiga in markaa awoodoodu ay yareed dadka afgambiga doonayay laakiin waxa ay doonayeen marka ay awoodda isku ballaariyaan iyagoo rumaysnaa in ay saraakiisha kalena ku soo biiri doonaan magaalooyinka Istanbul iyo Ankaraba taangiyada ayaa soo galay ciidanku waxa ay bilaabayaan inay gudaha u galaan xarumaha dawladda talaabooyinka ugu horeeyay ciidamadu ay qaadayeen sida afgambiga lagu yaqaanay waxay ahayd inay marka ugu horeysa la wareegaan xarumaha warfaafinta dawladdu ay leedahay si ay fariintooda shacabka ugu gudbiyaan khalkhalna u galiyaan dawladdii jirtay markii sheekadu ay halka marayso madaxweynaha waxa loo sheegay xaaladdu inaysan wanaagsaneyn salligan ayuu qaatay wuu soo weysaystay wuu tukaday 2 ragcadood waxaana uu bariyay Ilaahay waxaana uu go'aansaday in uu talaabooyin qaado waxaan aad ula yaabay madaxweynaha markii uu maqlay sheekada inuu 2 ragcadood tukaday oo markaa uu inoo sheegay in uu tagi doono ninkan waxa uu ka mid yahay dadka arrimaha bani aadamnimada ka shaqeeya waxa uu sheegay xilliga inuu ku sugnaa xarunta amniga ee magaalada Istanbul meel ku dhow waxa uu sheegay inay ciidamo iyo taangiyo ay goobtaasi yimaadeen waxaana uu sheegay ciidanka halka yimid inuu ka aqoonsaday nin ka tirsanaan jiray sirdoonka oo shaqada laga eriyay laguna tuhumay kooxda Golan wadaadka la yiraahdo ee jooga Mareykanka in markaa uu ka mid ahaa waxaana uu qorsheynayay inuu ciidamada si aan toos ahayn amar u siiyo isagoo isu ekaysiinayay in uu noqon doono ninka amniga guud wadanka la wareegaya hadii afgambiga uu dhaco saldhiga labaad ee ciidamada Azmir iyo saldhiga Istanbul waxa bilowday dhaqdhaqaaqyo inay diyaarado helicopter soo kacaan oo ay markaa soo aadaan dhinaca Azmir ciidamada gaarka u tababaran ee commandoska ee la yiraahdo Saad ayaa iyaguna bilaabaya dhaqdhaqaaq ciidan kale
oo la yiraahdo maak oo commandoska ka tirsan looguna tala galay cadawga gadaashiisa inay ka badbaadiyaan saraakiisha iyo duuliyaasha ayaa iyaguna qayb ka soo dhaqaaqeen labada ciidan waxa hogaaminaya madax doonaysa in ay afgambiga wadanka ku qabsadaan ninkan waxa uu kamid ahaa askari kamid ahaa ciidankii commandoska maak ee habeenkii howlgalka fuliyay waxa uu sheegay in lala hadlay saraakiishooda loona sheegay hogaamiye argagixiso in la doonayo in si kadisa loo qabto laakiin markii ay hawshu socotay ayuu sheegay in markii dambe haddana loo sheegay in la bedelay qorshihii isla markaana la doonayo mid ka mid ah hoteelada in la weeraro baaritaanna lagu sameeyo ra'iisul wasaaraha wadankaasi markii ay ahayd 12 habeenimo waxaa telefoonno kula xiriiray warbaahinta gudaha wadanka Turkiga waxay weydiiyeen waxa soconaya wuxuu sheegay koox ka tirsan ciidamada inay markaa sameynayaan amar diido kuwaana laga takhalusi doono laakiin ninkan waa nin ka tirsan xisbiga talada haya ee Erdogan waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha markii uu ka baxay Istanbul oo dhulka marayay kuna socday Ankara in wadada loo galay gaarigiisii la xabadeeyay laakiin darawalka ayaa waxa uu ahaa nin aad markaa u aqoon badan aadna u kala yaqaan wadooyinka waxa uu ku leexiyay wada dhulka hoosteeda laga sameeyay oo aan dhameystirnayn oo qabyo ah halka ayuu muddo ku dhoomanayay ra'iisul wasaaraha waa magaalada Istanbul jawigu waa sidan waa airportka Ataturk ee magaalada waxaana soo galay ciidankii doonayay afgambiga wadada la yiraahdo shaariicul wadan oo u dhow xarunta amniga Istanbul ayaa iyana sidan ahayd ninkan waxa uu kamid ahaa dadkii goobtaasi joogay ee shaariicul wadan waxaana uu sheegay inay arkayeen taangiyada iyo dadkii oo markaasi ishortaagan oo fahmi la dadka waxa soconaya inkastoo dadku ay ka dhir sugayeen madaxda wadanka inay la hadasho hotelkan waa Marmaris waa goobta ay ku sugnaayeen wasiirkan dhinaca daaqada Turkiga u qaabilsan iyo madaxweynaha oo iyagu isku qoysa waxaana ay markaa ku sugnaa madaxweynuhu inuu fasaxiisa sanadka qoyskiisa halka kula qaato gabdhihiisa nimanka qaba iyo caruurtiisa inta kale laakiin xaaladdu aad bay u kacsaneed madaxweynaha waxa uu go'aaminayay waxyaabo badan isagoo isku dayayay in markaa arintan la fashiliyo waxa ay kaamirooyinka hoteelada qabanayeen magaalada Istanbul mid kamid ah hoteelada waaweyn oo ay ciidanka afgambiga soo galeen iyagoo raadinayay madaxda ciidamada waxay soo qabteen sida aad u jeedaan taliyaha ciidanka cirka ee wadankaasi oo isagu afgambiga aan shaqo ku lahayn balse xaflad aroos oo qoyskiisa ah hoteelka u yimid waxayna ku qasbeen inay xiraan waxay sidoo kale xireen abaanduulihii markii hore ay u tageen oo amarka ka diiday halkan aad u jeedaan waa saldhigga cirka ee la yiraahdo Angelan waxa uu ku yaalaa duleedka magaalada Ankara waa goobta u ahayd fadhiga saraakiisha doonaya afgambiga wadankaasi Turkiga oo markaa halka ay ka qorsheynayeen qaabka iyo khidadaha ay doonayeen inay dawladda ku afgambiyaan laakiin waxaan ogaanay in hawsha ugu weyn ay ka socotay ay leeyahay afayeenka madaxweynaha saldhigan la yiraahdo Angelan saldhigan waxa qayb kamida deganaa ciidamada cirka ee Mareykanka shakigu markaa ayuu sii kordhay waxaa loo isticmaalay afgambiga 35 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo 37 diyaaradood oo helicopter ah dhamaantood waxa ay ka qayb galeen afgambiga lagu ridayay xukuumadda hase ahaatee hawshu sidii ay doonayeen uma aysan dhicin intaan oo saldhig ayay ka socdeen hawlaha dhaqdhaqaaqa waxaa la gaaray 12 habeenimo saqda dhexe hogaamiyaashii mucaaradka ku ahaa xukuumadda Erdogan ee iyagu xisbiyada mucaaradka ahaa ayaa iyaguna dhankooda bilaabay inay dimuqraadiyadda u heeliyaan
waxay telefoonno kula hadleen ra'iisul wasaaraha waddankaasi iyagoo u sheegay dhaqdhaqaaqa afgembiga ee waddanka ka socda in ay ka soo horjeedaan ninkan waa xubin ka tirsan baarlamaanka xisbiga la yiraahdo xisbiga qowmiyadda waxaana uu ka tirsan yahay xisbiyada ku dhow dhinaca dawladda ninkan kale waa xildhibaan isaguna mucaarad ku ah xukuumadda hase ahaatee waxa ay ka midaysnaayeen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta waddanka in loo hiiliyo dimuqraadiyadda lagana hortago afgembiga loo maleegayo waddankaasi in mar kale mugdi siyaasadeed lagu geliyo halkan waa xarunta sirdoonka magaalada Ankara waxaa ka socda dagaal waxaa bilowday diyaaradihii helikobtarka ahaa in ay xarunta soo weeraraan waxay bilaabeen inay rasaas ku furaan ciidankii joogay xarunta ayaa bilaabay iyaguna inay rasaas ku celiyaan waxaa si rasmi ah loola wareegay telefishinkii xukuumadda taageerayay gabadhan waxay ka hadlaysaa in waddanka uu isbedelay isla markaana ciidamadu ay qabsadeen iyagoo markaa soo celinaya sharaftii ay ku lahaayeen dawladooda caalamka isla markaana calmaaniyadii ay dib u soo noqonayso waxayna dadka ugu baaqayeen in la taageero qorshaha ay wadaan markii madaxweynuhu uu maqlay in telefishinkii waddanka la qabsaday ciidamadii militariguna ay ka hadleen ayaa waxa ay bilaabeen raggii la shaqeynayay madaxweynaha warfaafinta inay u yeeraan wariyayaal yar oo kuwa gudaha ah ayaa shir jaraa'id loogu qabtay meeshii uu joogay madaxweynaha afayeenka madaxweynaha waxa uu leeyahay culayska ugu badan ee naqabsaday wuxuu ahaa markii madaxweynaha laga duubay klibka ama videoga yar si aan ugu dirno telefishinadii kale ayaan weynay waayo internetkii waa uu tabcaanay sidoo kale meel kale aan ku gaarsiino waan garan weynay sheekaduna aad bay noogu adkaatay dadkuna waxay naga sugayeen madaxweynaha inay ogaadaan xaaladiisa maadaama telefishinkii la qabsaday gabadhan waxa ay ka mid tahay telefishinada sida gaarka loo leeyahay gabar ka shaqeysa oo wariye ah waxaan la xiriiray bay tiri ninka xafiiska madaxda ka ah madaxweyne Erdogan waxaan weydiinay inuu nala hadlo madaxweynaha wuxuu noo sheegay inuu video hayo laakiin uu na soo gaarsiin waayay mar kale ayaan sugay laakiin mar kale ayaan isku daynay waxaana uu sheegay in aanan heli karin wax aan ahayn FaceTime wax la yiraahdo sida Skype oo kale loo isticmaalo oo la iska arkayo taas ayaan iminka qorsheynaynaa sidii madaxweynuhu uu dadka toos ula hadli lahaa iyadoo la isticmaalayo aaladaasi FaceTime في هذه المرحلة كان الشعب التركي laakiin waxa uu leeyahay wasiirkan qoyska Erdogan ka tirsan marxaladdu aad bay u adkeyd waxaanu madaxweynuhu doonayay fariintiisa in shacabka la gaarsiiyo si looga hortago kooxaha afgembiga waxaanu xoog saaraynay saacadaas sidii madaxweynaha hadalkiisa iyo video muujinaya inuu bad qabo shacabka loogu gudbin lahaa waxaanu ogolaanaynaa marka dambe in uu la hadlo madaxweynaha shacabka si loo isticmaalo adeegaas madaxweynuhu waxa uu ka hadlayaa koox ka tirsan ciidamadu inay doonayaan waddanka inay afgembiyaan shacabkuna wuxuu ugu baaqayaa inay dimuqraadiyadooda difaacdaan oo ay soo baxaan meelaha banaanada ah ee raboorada iyo meel kasta si ay uga hortagaan afgembiga illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. hadalkii madaxweynaha markii telefishinka uu sii daayay dadku waxay bilaabeen inay isugu tuuraan internetka dibadda ayaa loo soo wada baxay shacabku waxay ahaayeen kuwa aad u caraysan oo ka soo horjeeda qaabka militarigu ay u dhaqmayaan waxayna go'aansadeen in ay difaacaan dawladooda madaxweynahooda iyo baarlamaankooda shacabku waxay bilaabeen inay ka hortagaan taangiyada sida madaxweynuhu uu ugu baaqay فإن الشعب التركي قد جن جنونه في تلك الليلة
ninkan waxa uu leeyahay wixii aan arkay wax caadiya ma ahayn shacabku aad bay u caroodeen habeenkaas waxay muujiyeen geesinimo waxay ka hortageen ciidamadii doonayay waddanka inay qabsadaan taangiyadii ayay isku hordhigeen waxaan arkay markii ugu horeysay mid ka mid ah taangiyada oo shacabku ay gudaha u galayaan oo askartii laga soo saaray عندما قرأت عن الانقلاب الذي نفذه العسكر ninkan waxa la yiraahdaa Najati waxa uu ka mid yahay dadka aad loo jecel yahay ee aflaamta sameeya ama actoriska ah waddanka Turkiga waxaan ku fakarayay faktii hore ama markii ugu horeysay in madaxweynuhu uu dadku la hadlo laakiin markii uu soo hadlay aad baan u farxay waxaana go'aansaday inaan ka mid noqdo dadkii waddanka difaacayay شارع الوطن قرب مديرية أمن اسطنبول meesha ugu darnayd waxay ahayd wadada la yiraahdo shaaricul wadan oo ah meel ku dhow xarunta amniga magaalada Istanbul waa meeshii taangiyada ay joogeen ninkaana dhismo agtiisa uu ku go'doonsanaa xarunta ammaanka magaalada Istanbul waa halkan waxaana soconayay dagaal diyaarado doonayay inay ku soo degaan helicopter ayaa waxa xabadeynayay ciidamo si gaar ah u tababaran oo booliiska ka tirsan oo uu aad uga shaqeeyay Erdogan ciidankaasi waxay ahaayeen ciidan gaar ah oo hub casri ah haysta waxayna ka tirsanaayeen booliiska laakiin si gaar ah ayay u tababarnaayeen waxay u diideen helicopteriskii askarta waday inay ku soo duldegaan xaruntaasi ninkan wuxuu ka sii sheekaynayaa wixii dhacay habeenkaas maadaama uu ka mid ahaa askartii commandoska ee loo diray hoteelkii markaasi uu ku sugnaa madaxweynaha inay soo qabtaan waxa uu sheegayaa in markii ugu dambeysay ay ogaadeen in ujeedku aanu ahayn argagixiso la soo qabanayo balse ay tahay hotel laga doonayo madax in la soo qabto waxaana uu sheegay in ay iyagu mar walba amarka qaadanayeen oo ay wadeen واضح أنه لم يكن لديهم معلومات محددة عن مكان laakiin madaxweynuhu mar walba waxa uu haystay macluumaad ku saabsan meesha ay wax marayaan waxaana mar walba uu la socday xaaladda waddanka laakiin markaa wixii ka dambeeyay madaxweynuhu waxa uu go'aansaday goobta uu joogo inuu ka baxo maadaama lagu wargeliyay inay amnigiisu khatar ku jiro kowdii habeenimo ayay saacadu tagtay diyaaraduhu waxay bilaabeen inay duqaymo sameeyaan waxa la beegsaday xaruntii ammaanka magaalada Ankara ninkan waxa uu ka mid yahay shacabka waxa uu ka qayb galayay habeenkaasi inuu difaaco xarunta amniga magaalada Ankara oo ay doonayeen kooxihii afgambigu inay qabsadaan كان عددنا ما يزال قليلا annaga tiradeenu aad bay u yareed waxaan doonaynay inaan askarta ka hortagno iyo waliba nimankii taangiyada watay waxyaabaha ugu badan ee na saaciday waxay ahayd mid ka mid ah dadkii mudaharaadka ayaa wuxuu watay codbaahiye ama mikrofon isagoo ugu sheegayay askarta inay dilaan shacabkooda iyo ciidankooda ammaanka inaysan wax faa'iido u lahayn laakiin askartu dheg jalaq uma siinin taangiyadu waxa amar lagu siiyay afgambiga inay gudaha magaalada u soo dhaqaaqaan laakiin shacabkii mar walba way hortaagnaayeen wayna u diidanayeen waa xarunta hoggaanka ciidamada ee abaanduulka sidan ayay xaaladeedu ahayd General Sayın Ümit Dündar var. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben Organ Ümit Dündar 1. Ordu Komutanı. waxaa bilowday dhaqdhaqaaq shacabka iyo ciidanka ammaanka ay isku baysanayaan waxaa howlgallo culus bilaabay ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska oo iyagu markaasi aad uga hortagayay ciidamadii dhaqdhaqaaqa waday ee doonayay waddanka inay qabsadaan ciidanka sida gaarka u tababaran markii ugu horeysay waxa ay qabsadeen xaruntii telefishinka iyagoo ka saaray kuwii soo weeraray waxaana la sheegayaa in taliyihii abaanduulka ciidamada waddanka Turkiga ay ka haysteen qoladii afgambiga laakiin
ciidanka sida gaarka u tababaran ee muddadii ugu dambeysay Erdogan uu aadka u qalabaynayay ayaa waxay noqdeen ciidan u babac dhigay kuwii afgembiga waday waxayna ka xoreeyeen xaruntii TV-ga iyo idaacadda ee waddankaas hoteelkii madaxweynaha ayaa howlgal ka bilowday markan madaxweynaha waxa uu go'aansaday in uu ka baxo hoteelka maadaama ciidamadii gaarka ah ay amar ku siiyeen in xaaladiisu ay khatar ku jirto isla markaana ay ku soo socdaan ciidamo commandosa waxa go'aansanay buu yiri inaanu diyaarad helicopter ka qaadano magaalada Marmaris ama hoteelka inagoo tagnay deegaanka Leero Dalamaan iyadoo hawada waliba ay isticmaalayeen diyaaradihii afgambiga qaarkood oo ay duulayeen laakiin waxaan go'aansanay inaan tagno magaalada Istanbul inkastoo aanu ka fakaraynay amniga sida uu noqon karo 15 daqiiqo markii uu ka baxay hoteelka madaxweyne Erdogan waxa markiiba hoteelka soo gaaray ciidankii looga baqayay inay isaga waxyeeleeyaan ay doonayeen inay khaarijiyaan ama qabtaan waxaana dhacaya hoteelka in ay soo weerareen ninkan waana maamulaha hoteelka waxa uu sharaxayaa wariyaha sida ay wax u dhaceen silsiladii ku xirneed albaabka way jabiyeen way soo galeen albaabkii way kala tuureen xoog bay ku soo galeen iyagoo doonayay hoteelka inay qolqol u baaraan laakiin ilaahay ba awoodda iska leh Erdogan 15 daqiiqo ka hor ayuu ka baxay meesha waxaan aragnay helicoptero ay ka soo daadanayaan ciidan commandosa xaaladdu waxay ahayd mid culus rasaastu jiha walba ayay u ridayeen laakiin waxay ahayd mid inta badan argagaxa oo wax dhibaato aan noo geysan dadkii hoteelka joogay kulligood way wada seexdeen cabsi darteed waxa laga baqayay waxa ay sameyn doonaan kooxda hoteelka soo gashay baarlamaanka waxa loogu baaqay inay habeenka oo saq dhexe ahayd ay yimaadaan si ay dimuqraadiyadda iyo dawladooda iyo shacabkooda u difaacaan way ogolaadeen baarlamaanka way yimaadeen xisbigii talada hayay Erdogan ayaa ku baaqay in ay yimaadaan xisbiyadii kale ee mucaaradka ahaana way aqbaleen baarlamaankii waa la furay habeennimo maxaa dhici doona waxaan u mahad celinaynaa xisbiyadii siyaasadeed ee mucaaradka ahaa oo naga aqbalay arinta halkan waa barxadda xarunta gobolka magaalada Istanbul ee dawladda hoose iyadana waxay ka mid ahayd goobihii ay dhibaatadu ka socotay عندما وصلنا إلى مبنى بلدية اسطنبول waxaan soo baxnay waxaan soo gaarnay xaruntii dawladda hoose ee magaalada Istanbul iyadoo dadku ay bilaabayeen inay taangiyada xoog ku fuulaan buundada shuhadada ama basfuur la yiraahdo ayaa iyana ay xaaladdu adkayd inkastoo dadku ay tagi diideen ciidanka laakiin buundada joogay waxa ay mar walba xabadeynayeen dadka iyagoo rasaas nool ku ridayay doonayeen inay dadka kale eriyaan laakiin dadku inay soo bataan ma ahane marnaba ma yaraan aniga waxaan ka mid ahaa suxufiyiintii rasaasta lagu furayay laakiin habeenka waxaan go'aansaday inaan dalkayga difaaco inkastoo qaar ka mid ah saaxiibaday ay dhibaato soo gaartay laakiin dhibaatada waxba uma arkin ee waxaan u arkay faa'iido aanu ku difaacnay dalkeena labadii habeennimo ayaa la soo gaaray 4 saacadood ayuu socdaa afgambiga isku daygiisa dadku aad bay u soo kordhayaan
waxaan gudaha u soo galaynaa hoteelka. halkan waa qaybtii madaxweynuhu deganaa. qolalkanna waxaa deganaa ilaaladiisa gaarka ah. 6 ka mid ah ayaa soo hartay markii madaxweynuhu uu baxay. iyagu waxay soo galeen halkan. way shirayeen waxa ay sameynayaan maadaama ilaalada intooda badan iyo madaxweynuhu ay baxeen. laakiin halkan dagaal culus baa ka dhacay. qoladii afgembigu markii ay soo galeen ciidankoodu waxay ku qasbeen ciidankii ilaalada madaxweynaha inay isdhiibaan si aatee way diideen. rasaas kulul ayaa halkaa la isku weydaarsaday. تتوارد الأخبار عن توجه الرئيس إلى أنقرة. waxaa soo baxay warar sheegaya madaxweynaha inuu ku sii socdo Ankara, laakiin garoonka Ataturk ayaa iminka waxaa ka dhacaya. ciidankii sida gaarka u tababarnaa ee booliiska ayaa soo galay garoonka. qolyihii xoogga ku qabsadayna way ka saareen. garoonkana waa la nadiifiyey. diyaaradii madaxweynuhuna waxay ku soo degtay Istanbul garoonka Ataturk. waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxda magaalada Istanbul. shaqada ugu weyneed ee ay qabteen waxay ahayd in ay gudaha u galaan oo ay qoladii qabtaan. laakiin midda kale oo ka sii wanaagsaneed waxay ahayd in xitaa bannaanka airportka uu ahaa mid nabadgelyo ah. madaxweynuhuna iyo diyaaradiisu ay soo degeen. kuwii soo galay garoonkana waa la qabtay. ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska waddankaasi Turkiga ayaa si kal iyo laaba madaxweynaha ula shaqeeyay. laakiin xaruntoodii sidan ayaa loo burburiyay. 50 ka badan ayaa laga dilay markii diyaaraduhu ay aad u duqeeyeen ayna ogaadeen ciidanka la dagaalamaya inuu yahay ciidanka gaarka u tababaran ee booliiska waddanka Turkiga. laakiin ciidanka aad buu madaxweynaha uga shaqeeyay. hubkoodu si marka loo eego aad buu u cuslaa. booliis caadiya ma ahayn. runtii madaxweynaha fikradiisu way najaxday, waayo waxa uu ku guuleystay ciidankiisii uu sameeyay inay hawsha wanaagsan qabtaan. dagaalka ugu culus waxa uu iminka ka soconayaa shacabkii iyo ciidankii buundada la yiraahdo Bosfor ama buundada shuhadada. dadku inay tagaan way diideen, inkastoo dhowr laga dilay qaarna laga dhaawacay. هنا وقع ما يوصف بالحدث الفارق. meeshan waa goobtii sheekada yaab kale ee ka dhacday. waa baarlamaanka waddanka Turkiga magaalada Ankara. haddaba maxaa dhacay habeenkaas? baarlamaanka inkastoo shir degdega ay isugu yimaadeen, haddana ay arrimo ka hadlayeen. maxaa ka dhacay baarlamaanka? waa la duqeeyay baarlamaankii. diyaarad ayaa bam ku dhufatay. markuu qarax u dhacay anaga dhan bus iyo boor ayaana daboolay. laakiin waxa meesha ka dhacayay wax la yaab leh ahaayeen. intii afgembi ah ee ka dhacday waddanka Turkiga weligeed ma dhicin in baarlamaanka waddanka la soo weeraro oo la burburiyo. ceeb bay ahayd ciidamada qaarkood inay tallaabada qaadaan. laakiin waxay ahayd xaalad waali ah runtii. laakiin wax kastoo dhacay xildhibaanadu way adkaysteen wayna joogeen. baarlamaanku waxa uu lahaa meel hoose oo dhulka hoostiisa ah oo ammaan ah. halkaa ayaan isugu tagnay. waxaana go'aansanay inaynu isbarbar taagno xukuumadeenna. qolkan aad u jeedid waa meesha madaxweynuhu uu deganaa qaybtii loo xiray isaga ee hoteelka ka tirsan. qolkan waa qolkiisii nasashada oo uu dadka ku qaabilayay. laakiin meeshan waa masaajidkiisii gaarka ahayd. laakiin sheekada aanu la yaabnay waxa ahayd inkastoo madaxweynaha iyo dadkii la socdayba ay halkan ka baxeen, kooxihii afgembigu marka ay soo galeen waxa ay rasaas la dhaceen musqusha. sida aad u jeedid rasaas xoog leh ayaa musqusha ka muuqatay. qof kuma jirin, laakiin aniga aragtidaydu waxay ila tahay inay ka caroodeen markii ay waayeen madaxweynaha xanaaq dartii mid ka mid ah uu halkan rasaas ugu furay. أو ربما لأنهم غضبوا كثيرا عندما اكتشفوا أن الرئيس قد غادر المكان. saddexdii habeennimo ayaa la gaaray. inqilaabkii hawshiisii ayaa socota. buundadii ayaa sheekadii ugu xumayd ka dhacaysaa.
أكبر أحداث تلك الليلة في إسطنبول وقعت gudoomiyaha gobolka Istanbul ayaa waxa uu ka hadlayaa tallaabadii ay qaadeen iyo afgambiga sidii ay uga hortageen waxa uu mahad celinayaa shacabkii u soo gurmaday xarunta dawladda hoose in ciidankaasu ay dhibaato ku sameeyaan iyo xaruntii ammaanka magaalada Istanbul shacabkeena ayaana difaacay annaguna waxaanu muujinay inaanu shacabka u shaqeyno telefishinkii waxa uu bilaabay inuu mar kale baahiyo warbixinada dawladda maadaama laga saaray kooxihii weerarka ku soo galay ee iyagu wararkii afgambiga ka jeediyay halkaas laakiin markii ay maqleen kooxihii afgambigu in telefishinku ay mar kale dawladdu la wareegtay diyaaradahoodii waxay amar ku siiyeen inay duqeeyaan xarunta dawladda ee isgaarsiinta telefishinka iyo internetka intaba wayna burburiyeen telefishinkii hawada ayuu ka baxay laakiin iyagu waxaysan xisaabta marnaba ku darsan in wadanka uu lahaa tobanaan kale telefishin oo madax bannaan oo qaarkood dibadaha laga maamulo waxaana ay u suurto gashay dawladda iyo shacabkaba inay xiriirkoodu ka sii wadaan telefishinadii kale xarunta ammaanka magaalada Ankara iyaduna sidan bay ahayd shacabku waxay doonayeen inay difaacdaan markii ay isdhiibeen mid ka mid ah taangiyadii soo weeraray xarunta ammaanka Ankara aad baan u faraxnay ciidankii la socdayna waxaanu ku wareejinay booliiska sida gaarka u tababaran waxay bilaabeen taangiyadii kale iyo baabuurtii kale gaashaaneed inay iyaguna mid u soo dhiibaan ilaa kuwa yar oo aanu aaminsanayn in ay yihiin kuwa ay saraakiil la socotay oo diiday inay isdhiibaan laakiin markii dambe dagaal waxa ku qaaday ciidanka booliiska sida gaarka u tababaran waxaana laga dilay dhowr qof si qasab ah ay isku soo dhiibeen بدأت مروحيات الانقلابيين في استهداف القصر الجمهوري waxay bilaabeen helikobtaradii iyo diyaaradihii dagaalka ee qoladii afgambiga inay markan bartilmaameystaan xarunta madaxtooyada waxay bilaabeen inay qaybo ka mid ah madaxtooyada bambooyin ku garaacaan laakiin dadku mar walba waxay difaacayeen oo ay tagayeen meel kasta oo ay kooxdan isku daydo in ay qabsadaan oo ay tagaan بالإضافة إلى أفراد حماية المجمع عند بوابة المجمع الرئاسي ninkan waxa uu ka mid ahaa dadkii iyagu doonayay inay difaacaan madaxtooyada isaga iyo mid la dhashay ayaa ku dhaawacmay weerarkii subaxaas ay ku soo qaadeen diyaaradaha xarunta madaxtooyada dadkii hordhoobnaa runtii aad baanu u shucuurtaydu u kacsanayd waxaan dareemayay farxad maadaama aan dadkaygu arkay inay ka hortagayeen afgambi laga soo maleegay meel ka baxsan wadankeena dibadiisa oo la doonayay dadkeena iyo dawladeena in lagu baabi'iyo laakiin nasiib darro waxa ay diyaaradaheennii oo canshuurteennii annagana la ka qaaday lagu soo gaday bilaabeen inay annagana duqeeyaan الرائد المسؤول عنها قال بأن الشخص المطلوب ترك الفندق ninkan waa sargaalkii ka tirsanaa ama askarigii ka tirsanaa ciidamada kumaandooska sargaalkiina watay wuxuu noo sheegay in hawshu sidii la rabay aanay u dhicin ninkii la doonayana uu baxsaday balse waxa uu sheegay inay tahay inaynu goobta ka baxno helikobtaro ayaan sugaynaa isdiyaariya waan raaci doonaa laakiin helikobtaradii intaysan soo gaarin waxaa hoteelka qaybo ka mid ah soo galay ciidanka sida gaarka u tababaran ee booliiska ee iyagu si kal iyo laaba u difaacayay Erdogan markii aan maqalnay codka diyaaradaha helikobteriska ah waa ninka hoteelkii madaxweynuhu deganaa maamulaha ka ahaa waxaan nala soo xiriiray ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska waxay noo sheegeen in rasaastu ay tahay iyaga oo ka hortagayay helikobteriskaasi inay qaadaan ciidanka gudaha ku jiray waxaana ay sheegeen in iyagu ay jidgooyo u dhigeen ciidanka oo helikobtarada u diideen inay soo dhawaadaan si ciidanka gudaha ku jiro mid loogu qabto يبدو أن القوات الخاصة أعدت لهم كمينا
afartii habeennimo 6 saacadood ayuu socday afgembiga waxaa la qabtay qaar ka mid ah ciidamadii iyagu isku dayay inay madaxweynaha khaarijiyaan madaxweynuhu mar kale ayuu hadlay waxaa laga sii daayay telefishinada gaarka waxa uu shacabka uga mahad celiyay hawsha ay qabteen wuxuuna ku baaqay in la soo qabto kuwa dambiilayaasha wali rasaasta culus waxay ka dhacaysaa buundada shuhadada ama basfuur waxaana dadku ay mar walba marka ka dambaysa qaadanayaan dhaawacooda iyagoo u diiday inay ciidanka halka jooga markaa u soo dhaqaaqaan magaalada xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxa uu bilaabay inuu dacwad ku soo oogo kuwa dambiyada sameeyay halkan waa meesha ay ku carareen baarlamaanka markii la duqeeyay ee godka hoose xarunta baarlamaanka oo markii hore loogu talagalay inay ku dhuuntaan markii ay sidan oo kale arin soo food saarto laakiin waxa uu sheegay in aysan wax walwala qabin waayo waxay ogaayeen inay naftooda u horayaan dalkooda waa 5tii aroornimo subaxnimo dadku waxay ugu baaqayaan ciidanka inay isdhiibaan maadaama afgembigii uu fashilmay laakiin ciidanku rasaas bay ku jawaabeen gazına bastı ya Allah diye bağırdı. ركب أحد الشباب دراجته وقال له waxaan u jeeday mid kamid ah inuu fuulay mootadiisa hase ahaatee rasaas ku dhufteen ciidamada laakiin arintaasi wax markaasi khalkhal ma gelinin dadkii halka joogay buundadan waxay ahayd meeshii ugu badnayd ee ciidamadu ku mitideen waayo waa isha kaliya ee lagu aqoonayo magaalada in ay tahay meel nabdoon iyo meel kale runtii waxay noola ekayd meel isbedeshay markii rag badan oo dhaawacaan arkay ra'iisul wasaaraha wadankaasi waxa uu magacaabay abaanduule cusub maadaama abaanduulihii ciidamada ay qabsadeen qoladii afgembiga لقد شعرت أن دماء شهدائنا لم تذهب هباء عندما رأيت هؤلاء aniga waxaan dareemay dhiigga dadkeena inay ahaa shuhadadeena waxaana ay ahayd runtii arin wanaagsan waayo waxaanu difaacanaynay wadankeena waa xaruntii madaxtooyada oo ay bilaabeen diyaaraduhu inay duqeeyaan aniga waan joogay markii bambada ugu horeysay ay soo dhacaysay qaybta dambe ee xarunta albaabkeeda ayaa bambadu ku dhacday oo ay diyaaraddu ku dhufatay aniga markaa ayaan dhaawacmay iyo walaalkay laakiin dad badan ayaa meesha taagnaa oo aan marnaba baqdin dareemin si ay u difaacdaan dawladooda iyo dalkooda 7 subaxnimo ayaa la gaaray iyadoo 9 saac uu socday afgembiga madaxweynaha ayaa mar kale shacab isu soo baxay la hadlay isagoo ugu baaqay shacabkiisa inay ilaashadaan doonitaankooda waxa uu sheegay shacabku inay difaacdaan dawladda ay doorteen 52% dadka wadankaasi $754 ayay gaareen dadkii la xirayay maalintaas laakiin way sii kordhi doonaan 10 saacadood afgembiga kadib waa 8 subaxnimo ciidamada sida gaarka u tababaran waxay isku hareereeyeen xarunta ciidanka commandoska ciidanka la yiraahdo Derek iyagoo ku tuhmayay halka inay ku xireen abaanduulihii ciidamada ee ka diiday inuu la shaqeeyo laakiin ciidamada gaarka ee booliisku way ku guuleysteen abaanduulaha inay soo badbaadiyaan buundadiina waxay noqotay iminka mid la xoreeyay
ciidankii buundada joogay waxay bilaabeen inay isa soo dhiibaan 9kii subaxnimo. أمر قصف مدارج الطيران في قاعدة كنجلر أعطي بشكل مباشر من رئيس الجمهورية، وأنا كنت بجواره عندما أعطى الأوامر إلى رئيس الأركان بالوكالة حينها الجنرال حميد دندر. السبب طبعا هو أن القاعدة وبالرغم من هذا الوقت المتأخر لم تكن laakiin arinta dhacday waxay ahayd markii ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska ay duqeeyeen saldhiggii diyaaraduhu ka soo kacayeen ee Angeline goobta diyaaradda ay ka duulaan. جاء في اعترافات مدير مكتب رئيس الأركان المقدم لفان تركان أنه waxaa la bilaabay saraakiishii in la soo qabto afgambiga ku lugta lahay. afgambigii wuxuu u muuqdaa iminka mid dhammaaday. waxay bilaabeen inay mid isu soo dhiibaan si ay markaasi u muujiyaan inay fashilmeen. طلبنا وكيل نيابة عسكري لكي نسلم أنفسنا له، وهكذا استسلمنا على شكل مجموعات. 12 saacadood kadib afgambiga waa 10kii subaxnimo. waxaa dhammaaday dhammaan isku daygii afgambiga. dhammaan waxaa isa soo dhiibay ciidamadii afgambiga ku lugta lahaa. saraakiishoodii ayaa la soo qabtay mid. ninkani waa mid ka mid ah saraakiisha sarsare dhinaca sirdoonka ciidanka badda. kan waxa uu ku jiraa qaybta tababarka iyo dhaqdhaqaaqyada. ninkan waa sirdoonka ciidamada Turkiga. ninkanina waxa uu ka mid yahay golaha shuurada, waxaana dhammaantood ahaayeen dadkii abaabulay arintan. maalintu way sii socotay. shacabku waxay dareemeen farxadooda. waxay ku guuleysteen inay ilaaliyaan waxa ay iyagu doonayeen. waxay ogolaadeen habeenkaasi inuu ahaa habeen dheer laakiin habeen guuleystay oo soo koobay afgambiga. العامل الأول هو رئيس الجمهورية. shaqada ugu horeysay waxaa qabtay madaxweynaha. waxaa soo kale qayb weyn qaatay shacabkii iyo dadkii. waxaan xusuusinayaa dadka markii aan joognay hoteelka inuu noo yimid nin ka mid ah dadkii hoteelka oo madaxweynaha u sheegay inuu iska cararo maadaama hoteelka uu lahaa doomo yaryar oo dheereeya si uu gariiga u galo. hase ahaatee madaxweynuhu taa waa u diiday. aniga waxaan aad ugu faraxsanahay tallaabadii shacabkaygu ay qaadeen ayuu leeyahay ninkan filimaanta sameeya aktarka waddanka Turkiga. runtii waxay ahayd arrin wanaagsan. laakiin mar walba uu afgambi guulaysto waxay ahayd in ay gudaha taageero ka helaan. laakiin afgambigii dhacay wuxuu ahaa buu leeyahay taliyihii hore sirdoonka mid aad yaab u leh sababtoo ah siyaasiyiintii iyo shacabkii gudaha aad bay uga soo horjeedeen. laakiin waxa kaliya ay haysteen waxay ahayd in gadaal laga riixayay oo dalal dibadda ah. maxaa dhacay markii afgambigu dhammaaday? dadkii oo dhan baa isu soo baxay si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan Erdogan iyo xukuumaddiisa. waxayna dadku ka baxeen imtixaankii dimuqraadiyadda. dawladdii Erdoganna waa ay sii xoogaysatay. rabitaankii shacabkuna waa uu sii kordhay. nihankii militariguna wuu jabay. qolooyinkii soo maleegay iyagu markaa hagardaamooyinka ee shisheeyaha ahaana way fashilmeen. bulshay meel kastoo aad joogtaanba waxaan idiin hayaa fariin cusub oo waa tuma. waa sharikadda duulimaadyada iyo tikadhada ee Furqaan Travel ee ku taalla bartamaha Birmingham oo idinku khidmaynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyadad